halkan aan hor taaganahay waa maqaayada Dabayare durbamankaada waxa ku soo dhacay wixii xalay waqtigan oo kala ka dhacay inta baraha bulshada hadii aad fiiriso waxa siyaabooyin kala duwan la isku la dhaxmaraya shaqaqadii ka dhacday xalay maqaayada hase yeeshee waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdada xaqiiqada ah waxay ku saleysneed iyo sida ay sheekada ku bilaabatay markaas معه كان واسو إبريس صغاري كلام كذي بس جاي عاد يداروا كلام كالموفى هذه موفي وحي كانت كلام كال سيسينكن حتى بقابتنا نفديا جارهان ميسكن حالي وحاسو ودجرها وعشية تدبر روح وسوق جري وللي قبله كواس أوضل بدي موفدن حد يهرت على يدين مقتيدون كنا markay cashadu dhameeyeen waxa ay damceen in ayagoo aysan lacag dhiibin ay iska baxaan sida maamulka meesha ay noo sheegeen balse maamulka markuu uu weydiistay lacagta waxay xuseen sidoo kale maamulka in dadkaasi ay sameeyeen awood sheegasho kadibna ay dalbadeen ciidan sidoo kale milkiilaha goobta dhankiisa waxa uu dalbaday laamaha amniga si xoolihiisa ugu qaata dadka محمد يوسف دبيره شغاله halka ka dhacday waxay ahayd waxa ka cashiyay toddoba ruux oo shacab ah hadii lacagtii la weydiiyay cashada cunanay baxeen banaanka geeyeen oo sheegasho iyo dagaal iyo fiiri keeneen kadibna waxay wacdeen askarteedii wacdeen annagana lama abdigan wacnay askartii markaas timida bartaasay ka bilaabatay shaqadii iyo faasintii meeshaas waxa dhaawac dad ka soo gaaray saddex ruux iyo qof dhimasho ah annaguna hantidii dadkii cashaynay way kala carreen inta cashaa oo tiil waynaga halawday qasas qasaaro badan naga soo gaaray markaas waa been waa warka media la isku dhaxmarayay wax kama jiraan ragga naga cashiyay iyo ragga dumar isku jireen waxay ahaayeen shacab waxay wacdeen askaray wacdeen annagana laama abdiga waa